bismillahi raxmaan raxiim madaxweynaha Colombia waxa weeye Cali Bestein waa dadka Hindida waqooyiga iyo koonfurta Mareykanka asalka u leh wuxuu yiri dhuxusha ugu badan wuxuu siin jiray Yuhuudda ka iibin jiray Colombia dhaqaalaheeda meel weyn buu ka qaadan jirtay wuxuu yiri ma doonino dhaqaale gacan ku dhiglaa dadkan ciyaalkii dumarka iyo ragga gumaadaya ma doonino inaan ganacsi la samaysano halkan wadamadan waa Turkiga waa Imaaraadka waa Kazakhstan Malaysia Indonesia Masar Urdun Azerbaijan Morocco iyo Bahrain waa 10 wadan 10 kuba waxay ka siman yihiin halwa 10 kuba waa muslim 10 kuba mid mooyaane Azerbaijan mooyaane sagaalka kale waa sunni dhaqaala waxaan inahay lacagta ay Yuhuudda la sameeyay dhaqaalahooda ka sameeyaan ilaa maanta 2 sano oo gumaad lagu waday Falastiiniyiinta weli wadamada sunnaha ah waxa ay la leeyihiin xiriir Colombia intaas 4,000 mayl jirtana wuxuu yiri ma doonina xiriir la sameeyo Venezuela sidoo kale way soo tuurtay xiriirkii dhaqaale la lahayd sunnayaasha markasta waxaan ku yiraahdaa dadka sunnaha malcaamada u fiirsada ciyaar carruurta tagaan dugsiga u fiirsada jaamacadda u fiirsada masaajidka tagaan u fiirsada waayo dadka wadamada haysta Soomaaliya haysta Soomaaliland haysta kamay iman cirka kamay soo diin sida roobka dhulkana kamay soo bixin sida dooga iyo dhirta bulshaday ka yimaadeen hooyooyin iyo aabayaal baa dhalay ka Turkiga haysta hooyo iyo aabo sunniya dhalay ka sheekay qasawaydo baahanta